anigu xeerka koobaad ama aynu ka doodayno waxaan ka dhigi lahaa xeerka ka hortagga iyo xakamaynta ka ganacsiga iyo tahriibka maadaama dhallinyaradeenni ay shaqo ladahay waxaa soo baxay casaabad dhallinyaradii shaqada lahayd markay jaamacadihii ka soo baxaan ee ay shaqo waayaan ku odhanaya nolol baa jirta yurub waxaanu dimarsiinaa etoobiya suudaan libiya dhallinyaradeenni lagu wada haystaa oo habeen walba iyadoo la garaacayo hooyooyinkood ama waalidkood loo soo dhigaa shaashadda si looga doono lacag madax furashaha marka xeerka ka hortagga iyo xakamaynta ka ganacsiga tahriibku waxa weeyaan waxaan siin lahaa anigu muhiimadda koobaad waxaanan ka dhigaynaa xeer aynu aad uga doodno waxyaalo badan oo ka joojinaya dadkan carruurteennii ku guraya gaariga noohada la yidhaah ee tahriibinaya waa inaynu ka qabannaa muxuu ahaayey qodobka labaad waa xeer annagu aanu hayno haddaanu nahay guddiga arrimaha bulshada oo berigii dhoweyd aynu xidhaynay golaha kalfadhigii hore anigu jeergaraynaya anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada aan jeergaraynayay seminaarkaa wuxuu khuseeyaa xeerka saxaafadda markaa wax ka beddel iyo kaabis ayaa muddo badan uu golaha dhex yaallay waxaan leenahay xeerkaa waa very important wuxuunbuu u baahan yahay isku soo gur iyo la taliyaasha sharciga oo isha marya kadibna aanu halkaa ka akhrino waana loo baahan yahayoo dee xukuumaddii iyo saxaafaddii innagaa u dhexayno xeerarkii u kala samaynaa waad ogtihiinoo waxaa jira telefishinno badan oo xaniban waxaana dadka u garsooraya ee xeerka kala hagaya samaynaya waa golaheenna marka waxaan u baahannahay haddaanu nahay guddiga arrimaha bulshada inaad nagu caawisaan in xeerkaa aanu ka dhigno xeerka labaad marka xeerka saddexaadee soo raaci karaa waxa weeye xeerka wax ka beddelka iyo kaabista xeerka maamulka madaxweynaha iyo baarlamaankii haddaanu lahayn oo madaxweynihii baa soo celiyey xeerkaa waynu samaynay wixii uu ka beddelay madaxweynuhu inaynu isla eegno baarlamaan aan isaga kii lagu maamuli lahaa aan la hagaajin oo aan salka ka fadhiyin oo niyadda ka fadhiyin muxuu isagu markaa maamuli xeerka maamuuska madaxweynaha iyo baarlamaanka madaxweynuhu maamuus buu inaga mudan yahay innaguna maamuus baynu ka mudannahay ummadda iyo madaxweynahaba markaa maamuuskii golaha oo aan ogahay xildhibaano badan inay igu raacayaan in madaxweynahana la maamuuso baarlamaankana la maamuuso oo aan ogay rag iyo dumarba goluhu waataan secondarkiina secondman buu helay ilaa guddoomiyaha iyo markhaatiya waxaan doonayaa xeerkaa inuu noqdo xeerka saddexaad saddexdaa xeerka wax ka beddelka iyo kaabista saxaafadda xeerka ka hortagga tahriibka iyo xeerka maamuuska saddexdaa xeer haddaynu dhammayno ayaynu burasidnaa saddexdaa aynu soo qaadanno waxaanoo xeer oo kale iyaynaan isku mashquulinin wasalaamu calaykum waraxmat ullah